شاء الله maxaa ka qurux badan nolol ku qanacsantahay iyo qofka ku qanacsantahay jecleed inaad la noolaatid waqti intaas la eg ilaahayna waxaan ka baryaynaa waxaana u dhistid iyo aqliyada baa ka dhistid ilmaha guriga lagu dhisaa waa fahanteen oo maleena cunug friidi hadaa aragtid waa cunug ilaahay ka soo waalidkiisa ay ku dadaaleen ee ma aragtay qiimeeyeen in aad u jecel cilankeeda cilanta u baahdo saa u socdo waxaan ku dhabuukiyirka laga kordhaca way jiraan dad saas oo kale dad waxaa jiro caadi suugadooda isaga cuno timaheeda isbuucyo ka hor waa aragteen bilo ka hor waa aragteen labadaas mar iyo hadeer farqi kale inuu dhaxeynaa isku mashquulo ana nafteeda cajibiyo ma fahanteen adadaad isqiimeerin hadaad isku mashquulin hadaad is cajibin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وادين سلام صحافة ميل بادون كدافيد كجوكتين ولاشين بدان إبراهيم وادين الله يسكسون قدو ناكسن وعاكو دمانتا قلب واهي إن شقيرا قبانينا لك شقادم بدنا دونت إن شاء الله وحاربا مانتي إنا علان سو سارتو وحاكو دا مناسبة دا إيقاره جرت إن شاء الله قدال دنباكو وقاد دونتين ماركا وحاربا بانكا قيرنا عيال قصص مايو يسوغو كدب بعد المغرب أني حاجة وحسكو راعي ربنا عشو مركا هاد المياه اسكسي كالتوسنا محيهتو قدودة وسمينا كدب إن شاء الله فيديو قد حديثة وحبضان كو أركي دونتين فلو قيرا كجرا عيا حتى وحاربا إنا وسو جوي بدلو حافظ هويا جينا سي وسي باشالان عاونا ماش يعني جوي قودو بدشان أننا waxaan ku dhahay ma sha Allah waa munaasabadeeni afraad waa sanad guuradeeni afraad hambaliyada noo soo hormariya marka insha Allah sanad guuradeeni afraad sanadka afraad noo dhamaaday 28 bisha 8 2018 waa qalgalkeena ma sha Allah maanta maalinta ku beegan tahay بريت وحي كدنبه waxa toos noogu bilaaban doona sanadkii shanaad alxamdulillah ilaa maadaas kale oo intaan wanaag iyo galgacayl iyo xishmad kala dambeyn gurgeeni iyo reerkeen noogu dhaq ilaahay noogu deeq awlaad qurux badan alxamdulillah shukr rabbil alamin allah saamadan mar walbo in maaragtay loo mahad celiyo intaas kadibna wax walba waxa kaga bogan doontiin dhamaadka videoga marka insha Allah intaas nala joogo nala soco jikadina waa u jeedeen saa u soo hagaajiyay taas deer waxa u bilaabnay inaan sameeyno muufadi jilcaneed muufa iska dhaarabtid muufa jilcaan ciyaalka ku cuni karaan ama pancake dheh adiga le waaye ma fahanteen marka baashana soo duwanayna insha Allah kadib waxa ku suugeera u sameeyna qadada siina ayaga marka kadib hagaajina insha Allah markaas intaas aaba waqti ahba oo maaragtay ilaa ay galabta liigu gaari doona kadib waxa raba xaafadooda inaan geeyo xabaar baashaleena xaafadooda toos u geena annama soo laabana waxa ku laxan doona buukiyeer cilaana ka marsana kadib insha Allah caawa bacd المغرب abxeena baashan aad iyo aad u fiican tahay aadin ciyaal ku jecelin ma sha Allah waa jileec waxay cuni karaan waaye wali markaas kor yar iyo kuna ugu qastid ma sha Allah waa dadka qaar yani dadka waaweyn xitaa waxaa jiraan suuga ku jecleen oo maaragtay kaligeed ayadii cadeys oo kaleeto ama malab yar lagu daray aniga baa ka koowa dadkaas way jiraan dad saas oo kaleeto dad waxaa jiro caadi suugadooda isaga cuno maadaama maanta laakiin qada ka rabay suugo oo sameeyay suugada laakiin idin duwin waa ku xumahay waayo degdegsiima ay ku jirtay marka ii suurtagali weysay jikada kaamil waxa aan maanta ka qabtay marka walaha kaleeto ii dhiman ka badan sidaas darteed maanta wixii aan ka tagay ii qabanin hal igu qaato intaas kadib asxaabeedan waa u jeediyeen xaaqina timi u soo tidcay caadi marka nooga dhigay ma sha Allah timaheeda isbuucyo ka hor waa aragteen bilo ka hor waa aragteen labadaas mar iyo hadeer farqi kale inuu dhaxeeyo waa u jeediyeen ma sha Allah ugu darin saliidii shaambadii iyo nafaqadii ayada markasta u mariya waqti dhowna bilooyinka soo socdan waxa arki doontiin ayadoo dhabarkay u dhaafayna duu Ilaahay idmo ma sha Allah saaragtiin boo soo wad qadeene qolka ciyaalka hadeer soo galay marka insha Allah hadii wixii ka dambeeya raba inaan u qabeeyo laakiin qabeeska inta la gaarin bo waxa la dhahay suug meeshana banuun ciyaareena xudayfo taagan ani la ciyaarkeedu ka dhigay halkan xabba ku wada ciyaareena amal ma jirto dabeecadna ma lahayn hadii banuuniga sas loo tuuro waxaan ku dhooraa lagu ooyna keeda soo qabsatan wuxuu leeyahay dhig kan ila ciyaar ma sha Allah marka Ilaahay awlaadha noo xafido intaan haysan Allah siiyo intaastan Ilaahay ha u barakeeyo waqtiyada firaaqada aad leedahay ama markaas aad leedahay waa awoodi kartaa in ciyaalka waqti siisid ciyaalka si waqti
la ciyaar la baashaal la kaftan waxyaabo u sheeg wax yacni hadalka bar kun su'aalooda lagu weydiina isku day su'aalahaas inaad ka jawaabtid deganaan u dhageysatid ha ku celin hadalka markasta hadalka ku celisid waa markasta ayagana hadalka ku sii dhago si fiican u hadlin laakiin qiimeey oo dhageysta hadalkooda xitaa hal eray haday 100 jeer kugu celceliyaan ilaa eraygaas uu kaga saxmo u dhageyso oo inhi ku dheh ما شاء الله marka ciyaalka yani jir ahaan kaliya in loo koriyo waa laga fiican yahay jirka waxa ka muhiimsan in maaragtay maskax ahaan loo koriyo jir ahaan cunugaaga inaad dhistid aad ay muhiim u tahay adigana muhiim ku tahay cunugaagana muhiim u tahay ayaysi dambo jir ahaan marka ku dhacayana yani ma ahan muhiimadeeda cayil waa maaragtay inaad siisid cunto caafimaad ama nafaqo leh inaad siisid ilmahan ayaga u kala dhashaan cayilka iyo caatada ma fahanteen laakiin daadid maanta cunugan waxan waa siiya ama waxaas waa siiya mana cayilayo cayil muhiim kuma ahan cayil cudur loo kala maqay ma fahanteen marka cayil iska normal waa okay cidiis ma lahan laakiin waxaan ka daranayda la diidaa waa fahanteen oo maleena laakiin waxa muhiim ah marka hore in maaragtay cunto caafimaad la siisid jir ahaantiisa adiga aad dhistid maxay ahaato maskax ahaan aad dhistid iyo aqliyadaba ka dhistid ilmaha guriga lagu dhisaa waa fahanteen oo maleena cunug freed hada aragsid waa cunug ilaahay ka soo waalidkiisa ay ku dadaaleen maaragtay qiimeeyeen hadalkiisa qiimeeyeen markuu yaraa oo in hadalka lagu celinin oo ma sha Allah waxa ku dhaa wax loo sheegi jiray aan la dhihi jirin qofka ma gaarin yani cunuga ma gaar uu yaryahay xil wax loo sheeg ma gaar inta badan dadka soo badan yihiin laakiin ma ahan ina wax sameeysid waa ina qiimeysid qofka weyn oo qiimeelad ina u qiimeysid waa cunug inuu barta asagoo yar qiimihiisa iyo sida loo qiimeenayo bari ka maalin marka wuxuu noqonaa meel aanan u qalmeynin sahal kuma galaayo qof aanan qiimeyneynin lama joogaayo ma fahanta de ardayda yihiin hadii qof kale uu yahay yani wuxuu noqonaa cunug dhisan oo qiimihiisa yaqaan waa fahanteen oo maleena marka bar ilmaha intay yar yihiin qiimahooda haddana waa soo baxnay saa u jeedeen buxawaarkoodii oo soo xire barfuun yar ku soo buufiye anna meeshan dhaxaa hadeer taagan hadeer hoos u sii dageena kadibna meesha idin sheegaya aadina insha Allah marka xoogaa waxa waa inaan isku mashquulo ana nafteeda cajibiyo ma fahanteen adadaad isqiimeeyay dad isku mashquulin hadaad is cajibin cid yani ku cajibinayso isku qiimeynayso wala fahmido aad xitee naftaada kaalweyn waa inaad ka qaadataa qiimeynteeda haddana waana kan waa soo degnay ma sha Allah saan u jeedin waxa waaye maanta ma sha Allah habiya ahay ma sha Allah maxaa ka qurux badan nolol ku qanacsan tahay iyo qofka ku qanacsan tahay jacleed ina la noolaatid waqti intaas la eeg ilaahina waxaan ka bareenaa inta cimrigeena ka dhiman inaan sidaan u wada noolaano cimri dheer cibaado suuban iyo caafimaad intaanan haysanin ilaahay ha siiyo nolol qurux badan ee ku degaan intaan oolaad haysan ilaahay ha siiyo oolaad qurux badan ee ku indhoogsadaan insha Allah annagana sidaas oo kale tan ugu soo duceeya sidoo kale tan balyadan soo raaciya saa aragtiin hadeer banaanka taaganahay oo waxa sugeynaa bajaaj laakiin albaabka hortiisa waxaan ku dhaaskarta saano fadhiso la odaasa ka wada nin meeshan intuu geesiska dhigay soo baxay tirxaa kiin markaas oo dhamay waa fiirna amal kadib waxaan ku dhahay hab laga keento soo orday la odiyo ka cabsada awalna geesiyo iska dhigay ma sha Allah laamigan waa u jeedina u maleena meesha noo jiro kan wax yar oo noo jira meesha powerta maraysa waaye kadib waa ka albaabka hortiisa bajaaj ka helnay bajaajkiya soo raacnay wali galab waaye yani habeen may noqonin oo mugdi ma noqon waa u jeedina u maleena haddana waa soo laabtay saa u jeedin toos waxa uga soo dhacay bukiirka ilbi waageeyay bukiirka toos soo aaday inta qoraxda iftiinta cilaanka iska sii marsana xaafada kadib ku laabana xaafada iska sii diyaarina macnihi kala bisana insha Allah markaas bacdul maqrib sii baxaa waa fahanteen oo maleena ma sha Allah qofta kaliya cilaankeeda ugu kalsoona gacanteeda fadhido qaro my habo waatana bukiirkeedu wuxuu ku yaalaa dabakaay madow gaarka masjid al nuur hada Madiina tahay cilaanka ka heshid waa la xiriiri kartaa lambarkeeda meeshan aad kugu soo qoraa ما شاء الله cilaan qurux badan ee saaraysa waxa ku dhahay in daraan daray ani aad u jecel cilaankeeda cilaanta u baahdo saa u socdo waxaan ku dhahay bukiirka laga kordhaca faanteen oo maleena ma sha Allah marka asxaabe maanta waxa ku dhahay xaruus wax lama dhaamo xaruusada ahay waa faanteen afila marka cilaanka waxa dhahay wax faafay ma anfacayo dheedheere cilaanka
ilaa ay korkii sida aroosyada ugu marinayso kale mari waatana gacanti kood waa ii dhameeyay ilaa ay korkaas halgeey waa ujeedin umaleena laakiin qof meeshaan waxay mashaq ku dhigtay iyadoo cilaanka ii marinayso TikTok live ku jirta ma fahanteen laakiin dib ma lahan gacantan hadda waxa ka dhiman faraha la ii marina kadib waxa ku dhahay ti dhiman markaas ay dhameystiraysaa insha Allah laakiin waxa ku dhahay ani iyadoo waxa qiri kala taagan mobilkan iga dhig live kan ka bax ayadan xitaagantee sug oo ma raba sug wax yar la ku dhiman ma jirto sug waa dhiga taleefanka yaa ayadii waxaan ku dhahay wood life ma fahanteen laakiin dib ma lahan waqtigeeda qaadato antana had ujeedin waa la dhameeyaybo farii waa la saaray wax ka dhiman ma lahan sida quruxda badnaa aniga araw igu saartay way dheereysay inta waxaan ka leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay total cilaankiina waa la ii dhameeyay ma sha Allah aad u mahadsantiin idinkana videogan bartugiisa jiro videoga aad u iga dheeraana hadda ku diri la laakiin insha Allah bartugiisa la soco intaan hadda soo gaarteen fadlan waxa ka codsanayna like ii saartid subscribe saartid hadan waxaan leeyahay nabadgelyo iyo nooli kulanti